بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu qaadanaynaa maanta 10 ku saabsan data entry-ga marka SPSS-ka la gelinayo ama datooyinka marka SPSS-ka la gelinayo marka waxa loo yaqaan data entry ayaa loo yaqaan marka maanta waxaynu gelin doonaa insha Allah taala example ayaynu gelin doonaa ku saabsan SPSS-ka waayo marka SPSS-ka aan soo kicino SPSS-ka waa kan waayo marka waxaan isticmaalayaa SPSS 20 baan isticmaalayaa marka waan isticmaali kartaa 20 21 16 17 لما فرشة نسخة صار واحد بدكم كل دوينه مركب جورنو SPSS كا وايه هذا ما SPSS كله كومية هاي دور شاشات بك كومية هاي دور شاشات بك كومية هاي كان واحد الله يقنا فريبل في بالله يقنا وكان فريبل كجلنا إنه كان واحد الله يقنا داتا في بالله يقنا وكان داتا كان كجلنا إنه لما ضوا هذا كان نصاب حيانا واحد الله يقنا output في بالله يقنا نتكلم يسمونه شنو الله يقنا scientific view لكن عفر تاس وي لما ضوا واحد الله يقنا مركز لسكون درا داتا إديتر بالله بالواي مركز example نقارنه إنه سوك إيويركا example بين قرينا هال example مركان قشط إن شاء الله والواحد ويديني يا قفك مقع عيسى ويديني name كيسا ويديني واحد ويديني for example date of birth كان ويديني date of birth date of birth بين ويدينينا واحد ويدينينا job كيسين ويدينينا شغالي سين ويدينينا واحد ويدين كنا أفكر for example income كيس هاي income صاقرة أنا عندي بشي حاسوا قلا أي نويدين مركا هل كانوا حنقول أنا فرسان بروح كسوق ده أحمد وبقى أحمد بن غنى كانوا راح عبدي كده كنا عبد الله كنا واحد كده تفر فرسان محمد ككوسي حاجة واحد كده تفر فرسان العلمي ككوسي حاجة واحد كده تفر فرسان الحمدة النمعو ككوسي حاجة واحد كده بتاع الصقل مركز واحد قلني تتوضع قفير قلني إن شاء الله وحنا شايفين كم كان بيشي كوبات بيشي لبعض كودي دي 1991 أيوة قف كان نحن شايفين كم بيشي صدح دي بيشي لبيه طبنات أيوة الشيء 1988 نحن رشيف فرسامبو لبينا لبعتنكي بشي حاد جانوري برشيدي فرسامبو 1999 علمي نحن رشيف فرسامبو صدحنا لبعتنكي بشي تضباط لبديكم وحين رأينا حمداء فرسامبو نحن رفتلبية طوانكي بشي شناد 1994 وحنا شايفين زمان صدق يا طوانكي بشي سجالات 1995 ضمنتي سجال واحد دلتاي تضبية طوانكي بشي كوبات وكون 1981 ورجع واحد هو student شبكة واحد كده جينا على مكرياته واحد رأينا هو مع lecture أم هو student مركا واحد لنا هو student من لنا هاي هو student من لنا هاي هو student من غنيا هو student من كده جينا هاي student من كده جينا سجنا وهاي واحد كده جينا student من كده جينا lecturer بين هذا واحد جينا lecturer ما يسوي student كذا lecturer كذا أوكي ألقى واحد بدريه سكر lecturer بنو بدريه عبد الله واحد كذا جايا إنه يهي معلم جامعة كترسن lecturer كذا هذا وين كم كيس واحد كذا $100 ما دام student يهي ما دام هو lecturer يهي $900 كذا ما دام student يهي واحد كذا $400 ما دام student يهي $600 كذا student $400 كذا for example student $500 كذا for example lecturer كل $400 كذا example كاسين نقول دونا إن شاء الله example كواد ركتها وحكي كوي وأفرق أيضا حيوان name كي و date of birth كي و job كي يا income كي وأفرق تاس هذا example كاين نقول مركا SPSS كاي SPSS كي نص صار SPSS كوالا بقى أيضا variable فيه اللي data فيه واحد نقول لنا variable risk
marka halkan marka dad furto waxaan haysanaa afar variable baan haysanaa variable kale kood waa name and variable kale labaadna waa date of birth variable saddexaad waa job variable afraadna waa income kuwan iyagu maaha variables kuwan waa data way oo marka name isticmaalada kuwan waa simanaya marka date of birth nimaano kuwan waa simanaya marka job joogno kuwan waa simanaya marka kuwan waxa loo yaqaanaa iyaga datooyin baa loo yaqaanaa marka shashada kale la gelinaya laakiin name-ka date of birth-ka iyo job-ka iyaga waxaan ku qoraynaa qaybta variable view marka variable view ka bilaabayna marka afar variable baan haysanaa waa name marka name ku qor koosa taabo kuwa kale marka uu buuxinaya laakiin waan sixi doonaa insha Allah waxaan u buuxinayna hagaajin doonaa name baan ku qornay kala baad muxuu ahaa date of birth koosa ku dhufo uu masaxaya markuu masaxo muxuu soo qorayaa variable name contain illegal character marka marka spaces la gelinayo name-ka marka la gelinayo space lama ogola hadda doonaysa space inaad baxdo waxaad ku kala jaraysaa underscore ama shift iyo minus marka waxaan leeyahay date baan leeyahay marka halkan space ka bixi lahaa waxaan leeyahay waxaan ku kala jarayaa underscore ayaan ku kala jarayaa marka waxaan leeyahay birth marka lama ogola space lama ogola haddii space aad baxdo marka waxaan masaxayaa markaas aad space hadda doonaysa space inaad baxdo marka waxaad ku kala jartaa underscore ka yar ku kala jar underscore ka yar aan highlight gareeyay ku kala jar waxaana isla qabanaysaa shift iyo minus ayaad isla qabanaysaa way ku sii xiga wuxuu noqonayaa job ayuu noqonayaa ka ku sii xiga wuxuu noqonayaa income noqonaya marka waan gelinay name-kii waan buuxinay fiirso hadda waa name date of birth job iyo income ayuu noqonayaa waa hadaba labelku muxuu noqonayaa labelku waa name-kii oo dhammaystiran iminka name-kii soo kooban baan geliyey oo space la lama ogola kan laakiin isagoo dhammaystiran baad gelinaysaa sida wordka uu qoran yahay marka waxaad oran kartaa for example name of respondents marka aan yar weynayo saad u aragtaan kana aan noo weynayo marka la weynaynayo farta oo kale marka doonaysa fartan inaad waaweynayso dhammaantood fartan waxaad tegaysaa sida caadiga fee baad tegaysaa halkan font baad tegaysaa waa sidii wordkii Excel oo kale font baan tegaynaa marka yar marka font marka waxa ka dhigtay 22 ka dhig haweenaadaan ka wada arkaysan date ka arkaysan marka good waxaad ku bilaabaysaa name ka ku bilaabaysaa name-ka markaad geliso magacyadii halkan isagoo oo dhammaystiran ma gelinaysa name for respondents waxaan leenahay date of birth of respondents okay halkan job baynu leenahay marka job of respondents marka isagu wuxuu ku fiican yahay labelku isagoo dhammaystiran baad qoraysaa haddaad doonto wordkeed ka soo koobi garan kartaa imka kanoo kale waynu koobi garan karnaa marka waxaad siin kartaa for example right click koobi baad siinaysaa marka spaces kood ku paste garan kartaa halkan waad ku paste garan kartaa ama control v baad siinaysaa ama dee waad ku paste garanaysaa u qaadanaya marka labelka iyo income wax kale kuma kala duwan labelka iyo name-ku difference-ka u dhexeeya waxa weeye labelka isagoo dhammaystiran baad qoraysaa uma baahna markaas uu space ku yeelaya wordkeed soo koobi garan kartaa laakiin name-ka markaad joogto isagoo ka kooban baad gelinaysa haddaan isticmaalo space baxna waa inaad ku kala jarto underscore waa inaad ku kala jartaa marka spaces-ka markaad data-ga sameynaysa labadaba waa inaad ugu horreysiisaa name-ka iyo labelka waa inaad ugu horreysiisaa marka imika waan iga geliyey variables-ka magacyadoodii waan iga geliyey marka name-kii birth date-kii iyo job-kii waan iga geliyey okay type-ka hadda kugu xiga type-ka muxuu noqonayaa sida caadiga ah spaces-ku type-kiisu waxa weeye waa afar qaybood weeye variables-ku afar qaybood bay noqonayaan imika kan type-kiisu muxuu noqonayaa type-kiisu wuxuu noqonayaa string buu noqonayaa waa string maxaynu string ku bixinay daba qoraal waxba lagu qoriyaa character baa lagu qoriyaa kanoo kale waxaa loo yaqaanaa isaga date baa loo yaqaanaa date weeye isagu oo waxaa la gelinaya isaga de day iyo month iyo year baa la gelinaya marka type-kiisu waa kaa type-kiisu job muxuu noqonayaa waa coding coding baa isaga loo yaqaanaa coding variable baa la yidhahaa coding variable baa la yidhahaa kana maxaa loo yaqaanaa isagana numeric baa loo yaqaanaa numeric waa number isagu numeric haddii markaa yar kala sharaxo name-ku waa string sababtan string ku bixinay waxa weeye magacyo la qoraya kan waa date sababtan date ku bixinay waxa weeye wax la qoraya day month iyo year baa la qoraya sad aragtaan kan waxaa loo yaqaanaa code baa loo yaqaanaa marka sababtan code ku bixinay waa maxay
dee groups bay noqonayaan kuwan imika dadka halkan nagu qoranaya aba waxay ku biirayaan groupka studentkay ku biirayaan ama groupka lecturerka ku biirayaan waxaa la example sida genderka oo kale imika genderka dad qaar waxay noqonayaan male bay noqonayaan qaarna dee waxay noqonayaan female bay noqonayaan waxaa ka mid ah imika ardayda jaamacadda dhigata subaxii iyo kuwa habeenka dhigta dee kuwa subaxii dhigta waxay noqonayaan shift morning ka dhiganayaan kuwa kalena waxay noqonayaan afternoon ayay dhiganayaan qaarna dee evening bay dhiganayaan marka dee kuwan waxaa loo yaqaanaa groups baa loo yaqaana iyaga oo group buu noqonaya maadaama marka wixii ay group noqonayaan sida male kii female oo kale sida midna waxaan odhan karnaa pregnant oo kale noqonaya ama wuxuu noqonaya qofku mar dead buu noqonaya marna life qof nool iyo qof dhintay ama waxaa la odhan karaa waa qof muslima qof kristana qof yahuudiya marka dee groups buu ku biiraya qofkii marka ka groupiska coding baa loo yaqaana kan isagu waa number wixii number waxaa loo yaqaana numeric baa la yidhaha numeric marka waa numeric variable marka variablesku waa afartaa qaybood marka typeska laga hadlayo ama string buu noqonayaa ama date buu noqonayaa ama wuxuu noqonayaa coding buu noqonayaa ama numeric buu noqonayaa waa hadaba inoo soo saaray spaceskeennii waa kelmaka waa name dee date muxuu noqonayaa markaa typekiisa ku dhufo ishaa yar soo fur markaad ishaa yar soo furto wuxuu noqonayaa string buu noqonayaa hadda halkaa u fiirso waa string laakiin numeric hore numeric buu ku taagnaa ka bedel markaa numeric oo string ka dhig waayo dee nameka waxbaynu qoraynaa string buu noqonayaa okay marka halkan waa character waa intaad qorayso imika 8 baa kugu qoran macnaheedu 8 wax ka badan ma gelin kartid marka haddii magaciisu afran qofka aad qorayso ama magaciisu midna for example saddexan haddaad qorayso dee badso sababad waxaad ka dhigataa for example 30 marka 30 xaraf waad gelin kartaa ay ka dhigan tahay okay si markaad okay si string buu isku bedelaya kan waa date of birth markaad soo rogto maxay nidhi date-ku muxuu ahaa dee dib u yar xasuusato date of birth-ka variableskiisu wuxuu noqonayaa date buu noqonayaa maadaama year iyo la qorayo day iyo month iyo year marka halkan ka eeg date wakaa marka date intaasoo qaybood baa loo qoraa imika dee matalan nidaamkan maraykanka oo kale dee maalinta dhexda la geliyaa ka ingiriiska bisha dhexda la geliyaa marka hadda noocaa doonaysaa dooranaysa qaarna way kala duwan yihin imika kanoo kale waa kaynu isticmaalno waa daygeenu monthkaynu dhexda gelinaa bishaynu dhexda gelinaa yeerkana waxaynu marinaa xaggana marinaa daygana xaggana marinaa marka kaa dooro okay si kaa date buu ka dhiga haddaba jobkii ba isagu jobka markaa maxaynu ka dhignaa jobka muxuu noqonayaa markaa jobka waxaynu idhi coding buu ahaa jobku coding variable buu ahaa okay halkan haddaba coding kuma qorra marka waxay dhahaan jobku wuxuu raacaya numeric buu noqonaya marka maxaa numeric ka dhigaya sababta uu numeric buu noqonaya waa maxay talow dee innagaa number siinayna oo for example imika wixii student 1 baynu siinaynaa codekooda wuxuu noqonayaa 1 buu noqonayaa wixii lecturer codekooda wuxuu noqonayaa 2 buu noqonayaa hadhow marka hadduu student yahay dee student qori mayno 1 baynu qoraynaa hadduu lecturer yahayna dee waxaynu qoraynaa 2 baynu qoraynaa marka sababtaasa markaa loo kala siiyaa 1 iyo dee 2 loo kala siiyaa marka midna 1 baa la siinayaa midna waxaa la siinayaa dee 2 baa la siinaya okay marka isaga numeric ka dhig marka wixii codina waxaad ka dhigtay numeric baad ka dhigaysaa numericgiisa ku daa marka wakaa waa numeric bada noqonaya income-ku isagu muxuu noqonayaa income-ku waa numeric halkan ka eeg income-ku wuxuu noqonayaa dee numeric bada noqonaya numeric ay noqonaya okay income-kina waa kaasi waa numeric marka variableska typeskooda waa kaa ama string buu noqonaya haddii xarf la qorayo haddii date la qorayana wuxuu noqonayaa dee date buu noqonayaa haddii income yahayna dee wuxuu noqonayaa numeric hadduu job yahayna numeric buu noqonayaa marka sababta jobka numeric ka dhigtay ama waxyaaba codingka waxyaaba numeric ka dhigay waxa weeye innagaa number siinayna oo innagaa number garaynayna macnaheedu ayay ka dhigan tahay waa yahay soo rog soo wad baan ujeedaa sorry width baa ku haray widthku waa intaad wax ku qorayso widthkana cadibka widthka sida caadigaa 8 buu soo qabsanayaa waad bedeli kartaa 8 laakiin 8daas uu ku program garaysan yahay waanu ka bedeli karnaa waad arki doontaa hadhow marka 8dan haddaad doonayso waad kordhin kartaa haddaad doonayso waad yarayn kartaa halkan 30 oo kale ka dhigan tahay 30 kaa barkasoo kaynu gelinay marka 30 kaa waad yarayn kartaa waanad weynayn kartaa wax adiga ku xidhan marka widthka isagu problem badan ma laha haddii matalan numbers badan aad gelinayso dee widthka waad kordhisanaysaa haddaad characters badan aad gelinayso isagana dee widthka waad kordhisan kartaa isaga date-ka widthkiisu waa inactive sababtu waa maxay dee isaga day iyo month iyo yeerka inta loogu talagalay way xadidan tahay waa la garanayaa dee ma kordhi karaan maalmuhu ma kordhi karaan bishu ma kordhi karto sanadkuna ma kordhi karo oo macnaheedu waxba iska bedeli maayaan sidaa awgeed isaga sizekiisu waxa weeye uu xadidan yahay lama kordhin karayo way kaana markaa way naga qaadanay xaggan aan usoo gudbo decimalku waa maxay waa fractionkii oo for example markaad imka number qorto dee 1 haddaad qorto kale dee 0.2 iyo kale way raaci karaan marka wixii decimal leh decimalkii marka waad ku dari kartaa waanad yarayn kartaa decimalka waanad weynayn kartaa dee nameku isagu decimal ma yeesho waa imika magacyada haddii la qoro imika magacan oo kale haddii la qoro dee lama raacin karo dee axmed 0.1 oo kale dee lama raacin karo ama axmed 0.0 lama raacin karo dee sax maaha marka dee waxyaabaha namesku ma yeeshaan dee iyagu decimal ma yeeshaan waxyaabaha date-kuna decimal ma yeesho oo maalinta fraction ma geli karto dee sanadkana ma raacin karno for example 0.2 oo kale ma raacin karno ma dhici karto laakiin kuwanu dee waxyaabaha numeric fraction way yeeshaan oo imika qofka income-kiisu wuxuu noqon karaa 100.5 oo kale dee noqon karaa
marka halkan haddaad u fiirsato waxyaabaha date-kii de fraction decimal ma yeelanayaan waxyaabaha stringekuna decimal ma yeelanayaan marka labadaas wada decimal ma yeelanayaan la socda laakiin kuwan iyagu decimal way yeelan karaan marka decimalka waad kordhin kartaa waana yareyn kartaa sida standardka decimalka wuxuu soo qabsanaya dee 2 soo qabsanaya marka dee 2 ku daa waaye haddii ka soo gudubno marka widthkii waa name-kii waan sharaxay type-kii waan sharaxay widthkii waan sharaxay decimalkii waan sharaxay labelka aniga hore u sharaxay dee labelku waxa weeye waa inka waa name-ka oo dhammaystiran weeye oo name-ka isagoo ka kooban baad gelinaysaa decimalkana isagoo dhammaystiran labelkana isagoo dhammaystiran ayaad gelinaysaa haddaan soo socdo value aan xaggan u soo socdo value wuxuu noqonayaa kuwana value yeelanaya kuwan imka value ma yeelan karaan waayo magacyada lama value garan karo oo magac la mid ma jiro imka Axmed Cabdullaahi Maxamed Cilmi way kala duwan date kana lama value garan karo waayo date la mid ma jiro sidoo kale de income kana lama value garan karo waayo de income la mid ma jiro laakiin kuwa la value garan kara iyaga sidoo kale waxay raacaan waxyaabaha coding-ka qaadanaya de for example de 0 iyo 1 qaadanaya imka hadii jobka kale student kale 1 bayna siinayna lecturer kana 2 bayna siinayna hadduu male iyo female yahay waa la mid waxaan gelinaynaa isagana 0 iyo 1 bayna kala siinayna ama 1 iyo 2 bayna kala siinayna marka value kaliya waxa qaadanaya kuwa marka value waxa qaata coding variable ko kaliya wixii coding ayaa value qaata laakiin wixii string wixii data iyo wixii numeric value ma qaadanayaan kaasoo kaliya ta qaadanaya marka ishaayir baynu soo furaynaa 1 baynu gelinaynaa 1 ka waxaan ku qoraynaa marka student baynu ku qoraynaa marka hadhow haddii 1 gelino student buu qaadanaya student arsi arbaad siinaysaa 2 baad gelinaysaa 2 markaad geliso waxaad gelinaysaa markaas waa maxay lecture aad gelinaysaa lecture arbaad siinaysaa hadduu ka qaldamo ku dhufo iska remove garee remove si dadna 2 baad leedahay waxaad leedahay marka maxay lecture bay leedahay marka waxaad leedahay arbaad siinaysaa markaas okay markaas si marka ay ugu fiirsan value kale kaliya ta qaadanaya waxyaabaha coding ko kaliya ta value qaadanaya kuwa coding ka qaadanaya hadda ka fiirsato waxa weeye kaliya ta kuwa inoo heerad garaysan waa coding variableskaas waad aragtaa coding variableskaas kaliya ka kuwaasoo kaliya ta ay qaadanaya kuwa kale iguma qaadanayaan waayo sababta aanay u qaadanahay value-ga waxa weeye dee name-ku magacyada magac la mid ma jiro imka Axmed Cabdi Maxamed way kala duwan date of birth kuna way kala wada duwan yihiin dhamaantood income kuna dee dhamaantii kala wada duwan yahay oo income la mid ma jiro dee way dhici kartaa inay mid iyo laba isku mid noqdaan laakiin badankoodu way kala duwan yihiin laakiin kuwan waa laba group ama qofku wuxuu noqonayaa either student buu noqonayaa ama either lecturer buu noqonayaa okay aynu ka socono marka sadiir faantaan missing value-ga iyaga waa wixii maqnaa marka missing-ka soo furo isha marka missing laba qaybood baa loo qaybiyaa halkan waxaad gelin kartaa for example missing-ka maxaa maqan aad ku qori kartaa marka waxaad oran kartaa discrete missing value marka saddex maqan waad gelin kartaa saddex maqan waad gelin kartaa haddaad doontana waxaad ka dhigi kartaa no missing baad ka dhigi kartaa laakiin hadhow sida caadiga marka daatooyinka soo ururinayso wixii maqan waad ka boodaysaa iyagu dhib ma laha marka kaa weyn ka boodi doonaa isaga insha allah oo marka daatada gelino meel ayarka ka boodayna column-isku wuxuu la mid yahay sidii widthka column-ka aid buu soo qabsaday waad yareyn kartaa waanad weyneyn kartaa marka isagu macno badan ma samaynayo column-ku wuxuu la mid yahay saan ku tilmaamay widthkaasoo kale la mid yahay marka widthkii column-ka mistake buu soo qabsanaya haddaad u baahantahay waad kordhin kartaa haddaad u baahantahayna waad yareyn kartaa align-ka ku haray waad eegi kartaa align sorry align-ka sidiisaba waxa weeye waa saddex qaybood waa left right center oo markaynu gelino muxuu ahaa numberka yar ama marka 1 baad gelisay dee 1kii mar wuxuu dhigaya left ku dhigaya mar right ku dhigaya marna center ku dhigaya marka ka doonto dooro for example ka left ka dhig for example ka center ka dhig labada kalena right ka dhig marka imka number iskeed gelino markaan ka number gelino center ku dhigaya kana left ku dhigaya labadana right ku dhigaya marka isagu macno weyn ma sameeyo wuxuu baad ka ilaalinaysaa in isagu ka waxaad ka ilaalinaysaa ka wuxuu baad sameynaysaa ka doonto dooranaysaa centerka ama leftiga ama right-ka ay dhigaysa way ka ugu muhiimsan ee ku xiga waa ka ugu muhiimsan weeye waa measure-kii measure-ka haddaad soo furto waa saddex qaybood halkan dayreeg waa scale iyo nominal iyo ordinal halkan markaaynu ka kala sharaxo barata halkan yareeg saddex qaybood weeye waxay yidhahdaan horta wixii numberisa imka income ku aragtaan waa numeric waa number marka waxa la wixii numeric ama numeric variable-iska markaad measurement-kooda aad sharaxayso barata markaad measurement-kooda measurement-kooda sharaxaysa waa scale marka measurement-kooda hadda la soco waa scale buu noqonaya marka wix allaala wixii numberisa ama numeriga measurement-kooda wuxuu noqonaya scale buu noqonaya waxaa la mida allahuma salli cala nabi waxaa la mida date-ka
حيران وحلا لو وحي ديدا ما variables وحي ديدا oo iyaguna scale bay noqonayaan marka hadal ka fiirso wixii haduu number is yahay ba waxaad ka dhigaysaa scale baad ka dhigaysaa haduu dheed yahay waxaad ka dhigaysaa scale baad ka dhigaysaa haduu string yahay ka waran string ka measurementkiisu isagu wuxuu noqonayaa nominal buu noqonayaa nominal buu noqonayaa marka nominalka waxa la yiraahdaa waxyaabaha aan kala sarreynin baa la yiraahdaa imika qofka hadii Axmed la yiraahdo hadii Cabdillah la yiraahdo waa isku mid ma kala sarreeyaan wax macna ma sameeyo in Axmed la yiraahdo in Cabdillah la yiraahdo waa isku mid weey marka waa nominalku macnaheedu waxa weeye difference ma dhaxeeyo ama farqo ma dhaxeeyo marka nominal baa ka dhigaysaa wixii codina baraadu fiirsaada wixii codina halkan ay imika wixii imika chapter wuxuu noqonayaa ordinal buu noqonayaa ordinal maxaa marka ordinal uu siiyay qofka student-ka iyo qofka lecturer-ka isku mid maaha oo direemi karta qofka lecturer-ka ama macalinka inuu ka sarreeyo ama ka level sarreeyo ardayda marka dii ordinal baa laga dhigayaa mar hadduu ka level sarreeyo la socota ay level ordinal buu noqonayaa marka halkan u fiirsa hadda chapku isagu nominal uu noqon karaa sometimes imika waxaan coding variablesku sometimes nominal uu noqon karaa imika genderka oo kale haddaad ku darto ka war dee genderka wuxuu noqonayaa nominal buu noqonayaa waayo qofka hadduu female noqdo iyo hadduu male noqdo waa isku mid waxba ma dhexeeyaan marka haddaan ku noqono dee stringka waxaan ka dhigaynaa ka koowaad waa string marka waxaad ka dhigaysaa ka koowaad u fiirso waa magacyadii waa nameski marka waxaan ka dhigaynaa nominal baan ka dhigaynaa ka labaad waxa weeye waa dateka waxaan ka dhigaynaa scale baan ka dhigaynaa ka labaad waxaan ka dhigaynaa ordinal baan ka dhigaynaa marka maxay ordinal ka dhigaynaa dee waxaan ka dhigaynaa qofka hadduu student yahay hadduu lecturer yahay dee isku mid maaha oo kala duwan ka ugu dambeeya income wuxuu noqonayaa dee scale buu noqonayaa marka halkaa u fiirso waa laba scale iyo mid nominal iyo mid ordinal marka halkaa badanka dadku way ku dabaqaan ama dadka SPSS ku ay xoog ma yar fahmaan haddaan mar labaad haddaan sharax yaro brief ka siiyo wuxuuba hadduu noqdo numeric hadduu number ba noqdo waxaad siinaysaa scale baad ka dhigaysaa hadduu date ba noqdo scale baad ka dhigaysaa hadduu string noqdo string hadduu noqdo waa nominal buu noqonayaa hadduu laakiin coding noqdo dee codingka laba qaybood buu noqonayaa ordinal buu noqon karaa ama dee sometimes nominal buu noqon karaa sometimes nominal noqon karaa imika nominalka waxa kamid ah genderka oo kale marka haddaad iyo fiirsato imika gender haddii la qoro qofku male ba mise female haddii la qoro dee wuxuu noqonayaa nominal buu noqonayaa waa qofka inuu male noqdo iyo inuu female noqdaa dee farqo ma dhexeeyo waa caadi ma kala sarreeyaan sida dee ardayga iyo dee students oo kale ma kala sarreeyaan okay ugu dambeyntii waxaa inoo haray roolka waa kaa okay roolka haddaad eegto roolku dhufo markaa roolku waa input iyo dee wuxuu noqonayaa iyo target iyo both sida caadiga waa input waayo waxbaynu gelinaynaa marka hadda input baad ka dhigaysaa marka saasaan ku dhamaystiray bal haddaba fiirso marka haddaan soo dul maro marka ugu horreysa waxaad ugu horreysinaysaa nameka isagoo kooban baad gelinaysaa haddaad space baxayso underscore baad ku kala jaraysaa marka iska ilaali haddii kale uu kaa masaxayaa labelka u fiirso isagoo dhamaystiray baad gelinaysaa intaa wixii ku xiga waxaad gelinaysaa typeka marka typeka waxaad gelinaysaa ma string ba ma date ba ma numeric ba marka badanka su'aalaha marka dee analysiska marka la gaadho ama qofku markuu wax analyze karinayo mostly waxay noqdaan numeric bay noqdaan widthka iyo columnku isagu waa isku mid haddaad doonto waad kordhin kartaa haddaad doontona sideed ku dayn kartaa columnkiina waa kan marka labadaba mi sideed bay soo qoriyeen haddaan ka gudbo widthka kan wuxuu noqonayaa widthkii buu noqonayaa waxa markaa soo galay qaar badan baa soo galay markaad masaxayso halkan ubaad taabanaysaa markaad markaasoo kale masaxaysa halkan ubaad taabanaysaa right click baad siinaysaa clear baad leedahay imika kanoo kale waxaad siinaysaa right click clear kanoo kale waxaad siinaysaa right click clear marka hadday qaar galaan haddii variables dheeraada ay magaranaysaa ay ku biirismaan kana tegaysaa haddaad doonto counterkaad la qaban kartaa markaa dhammaantood wada haylaad garayn kartaa dabeetna right click baad siinaysaa waxaad leedahay clear baad leedahay markaa ugu dambeeya oo kale for example kanaad ku dhufanaysaa clear baad leedahay markaa markaad wax clear garanaysaa waa inaad koon ku dhufataa okay haddaan markaa ku noqono markaa saasaan ku dhamayna markaa qaybtii koowaad ee variable view-ga waxaynu gudbaynaa data view-ga marka data view markaa taabato waxaa kusoo gelaya namekii birth date-kii jobkii iyo income-kii markaa waa inaad kuwan geliso markaa wax kale kuma harin waa inaad daatadan gelisaa marka imka ardayga koowaad oo kale for example magaciisa waxaa la dhahaa Axmed baa la dhahaa marka Axmed baad ku qoraysaa ardayga labaad waxaa la dhahaa Cabdillaahi baa la dhahaa Cabdillaahi baad ku qoraysaa hadduu Cabdillaahiga masaxa ka waran imka for example halkan oo kale aad Cabdillaahi ku qortaa ama Axmed dad ku qorto masaxaya marka dad dhow halayso sababtu waa maxay kan waa numeric weey marka dad aragta Axmedka iyo Cabdiga waxyaabaha ku qoraysay inuu ka masaxayo dib u yar noqo inta dib u yar noqo halkan iska jeegare halkaas aan string tahay marka halkaas inay string tahay iska jeegare imka halkan oo kale halkan name-ka aad ku qoraysaa haddaad number ku qorto ka soo qaad 23 ku qortay uu masaxaya sorry string baa
أحمد عبد الله محمد علمي الكامل كاسجنا واحد لنا هاي محمد بينو لنا هاي واحد لنا هاي مركا كان علمي بينو لنا هاي الونسي وضعنا مركا حمدة نمعو حمدة سوري نمعو سجل واي ديت اوف بيرث كمركا اللي قليلة طبعا يكون هذي مقعدي وانا قاصد قري ديت اوف بيرث كانوا ولا شيء بيشي لبعض كوديدي 1991 يعني مركا واحد قليلة هو بيشي كوبات نوت بتقليلة مركا نوت بالمو كلا شرية سنة كا مالين تاع صيو بيشا مركا هو نوت هذا نوت كلا قليلة وكا 1991 يعني مركا بيشي يا مالين تي سنة كا نوت بالمو كلا شرية مركا كل فترة يسقى فيوري كده جاية تمام كيسا يسقى فيوري كده جاية كلا مرة ده فيرسو وبيشي لما تورث دحديدي 1988 marka waa saddexdii bishii 12aad 1988 marka xaq waasoo ku fatay marka isaga ka dhigaya December marka isaga bedelaya waaya ka kale waxaan qorayaa bishii 6aad 2020keedii 1999 marka 2020kii bishii 6aad 1999 marka dad baad ku kala jaraysaa marka dad ku kala jarto okay ma noqonaya soo baxaya way ku kala idin ka tagaya soo bixiya marka shopka ayaa ku haray shopka marka maxay gelinaynaa bal halka loo fiirso waa student iyo lecturer marka waxaad gelisaa 1 iyo 2 yuma gelinaysaa student ku qorin lecturerna ku qorin ila way inagii faariyo gareynay ee u qaadanay midna waan u qaadanay midna tuu qaadanay marka hadda dib ugu yar noqoto variable view-ga variable view anaga joogna value-ga waka midna waxaan siinay 1 baan siinay midna waxaan siinay 2 markaan joogno value-ga markaan value-ga joogno midna waxaan siinay 1 baan siinay midna 2 marka hadda wan gelisaa dhow student isaga ka dhigaya hadda 2 gelisaa hadda software-ka hadda lecturer ka dhigaya marka uma baahnid inaad geliso de lecturer iyo student inaad geliso 1 iyo 2 baan gelinayna marka inagu celi ka kood wuxuu ahaa marka student buu ahaa ka labaad wuxuu ahaa sorry ka kood student buu ahaa marka halkan ka yar bedel ee iyo wanka hadda fiirso ee iyo wan halkan ka yar bedel wakii kood kala wuxuu ahaa lecturer buu ahaa student buu ahaa student buu ahaa student buu ahaa student buu ahaa lecturer buu ahaa marka waniga wada geliyay marka labadaas waxa weeye iyagu lecturer bay noqonayaan Cabdullaahi iyo sagal laakiin kuwa kale waxay noqonayaan iyagu students bay noqonayaan haddaad doonaysa inaad bedesho bal halka halka dulgeey waxa ku soo baxaya value libraries baa soo baxaya marka ka bedel waa ka wada arkaysaa marna student buu ka dhigayaa marna lecturer buu ka dhigayaa marna student buu ka dhigayaa marna lecturer buu ka dhigayaa haddii marka saddexaad geliso marka war wanka masaxay saddex baan ka dhigay eegwan iyo 3 baan ku soo daray 3 ga ma bedelayo sidiisii ku deynaya eegada way sababtoo ah marka hore aan soo code gareenin naxti marka hore aan value-ga soo sameeyay oo ka u fiirsaada 1 iyo 2 kaliya taan code gareenin marka haddaad code gareen waayo hadduu bedeli waayo macnaheedu waxa weeye maad code gareen marka dib baad ugu noqonaysaa iyo dib waad code gareenaysaa okay income ka gelinaysa marka 100 weeye income-kiisu 200 weeye income-kiisu 300 weeye income-kiisu 400 weeye income-kiisu waa ka marka income-ka isaga dadsi numbers ka aynu ku qorinay marka uu fiirsaday marka dhaatadii waan geliyay waad aragtaa marka de kuwan waxa loo yaqaan marka variables ka marka waxa la gelinaya iyaga variable view-ga la gelinaya waa variable view-ga iyaga la gelinaya waxa kana iyaga laga soo bilaabaya waa ka de name-kii birth-kii date-kii job-kii iyo income-kii iyagoo dhammaystiran waa kuwan xagana data view baa loo yaqaan dhaatooyinkii baa la gelinaya marka kuwan waa dhaatooyin isku qaldina waxa kala gaar kuwan waa variables name-ka job-ka iyo income-ka waa kala gaar marka waxa loo yaqaan variables iyo cases baa la yiraahdaa ama variables iyo waxa loo yaqaan maxay dhaatooyin ayaa la yiraahdaa waaye marka haddaan sii soconno intaas waxaan ogaag marka daatin tiri waan ogaag kaliya waxaan u haray inaan yar xoogaa yar ku darno haddii marka halka aad doonayso mid for example chopka iyo waxa doonaysa iyo birthday-ka dhexdooda inaad geliso variable ama inaad column ku darto waa sidii excel ko kale halkan aad ku dhufanaysaa waxaad leedahay insert baad leedahay marka right click insert baad leedahay waxa ku daray variable cusub baad aragtaa haddaad ka saarayso right click baad siinaysaa waad kala garanaysaa waxa la mid ah dad row ku daraysa imka Cabdullaahi iyo Maxamed dhexdooda qof kale gelinayna marka waxa leedahay insert baad leedahay qofkaas aad gelin kartaa for example aad ku qori kartaa information-kii oo dhammaystiran marka column waad ku dari kartaa de row waad ku dari kartaa waa sidii excel-ka haddaad doonayso waad kala garan kartaa labadaba okay marka qaybtaas waxa weeye waa qaybtii data entry-ga iyo insa ku dhameynay waxaan markaa u gudbi doonaa qaybta ku sii xigta ayaynu gudbi doonaa oo ah kuwan maxay noqonayaan kuwan xagga sare ku yaala qoraaladan xagga sare ku yaala file iyo edit iyo view ay ku qoran yihiin iyo kuwan maxay noqonayaan iyaguna kuwan maxay noqonayaan kuwan maxay isticmaalayaan haddii aad doonayso inaad save gareeyo kana kale oo open
waad arkaysaa waa open waa markaad mid cusub furo markaad mid hore ku save garaysan aad furayso ama mid ku save garaysan aad furayso ayaa open ayaad siinaysaa marka waa open waa sidii waad ku dul furi kartaa kan waxa weeye waa save kii waad markaad save garanaysa weeye marka la save garanayo weeye imika open kan oo kale haddaan ku yar noqdo dee waa mid ku hore kugu furnaa bal imika kan oo kale ayaa markaad save garanayo bal imika kan save garee waxaad u bixisaa for example lesson one bixi ama waxa ka daa data entry bixi data entry bixi marka waxaad inagu save garaysaa for example desktop oo kale inagu save garay marka save dhe marka save dhe marka imika waa save gareeyey imika waa save gareeyey haddaad mid cusub furayso control n baad siinaysaa control n waa new ama haddaad doonto halkan aad tegaysaa file baad tegaysaa waxaad leedahay marka new baad leedahay halkan waad ka tegi kartaa marka imika control n baad siinaysaa markaad control n siisay mid cusub buu ku furay marka kii hore doonaysaa inaad halkan keento kii imika save gareynay marka open baad leedahay markaad open siisaa hadda u fiirsa desktopka markaad tagto waa kaa data entry oo kaa marka open waad ku furaysaa hadda u furaya marka waxaad leedahay maxay open in a new window marka inoo furay marka open kan wixii ku save garaysnaa hadday excel yihiin iyo hadday SPSS yihiin halkan aad ka keenaysaa hadduu excel yahay dee waxaad ka dhigaysaa excel baad ka dhigaysaa haddii kalena dee all files baad ka dhigaysaa marka imika haddii dhaatada excel kugu jirto hadday kugu jirto SPSS hadday startup kugu jirto dhaatada noocay doontaa ku save garaysnaato dee markaad furayso markaad dib ha u qorin halkan ubaad waad ku furaysaa kan waa save kiisa waan aragnay kan waa printing waa marka la print garanayo kan muxuu sheegayaa waxa loo yaqaan waa recall recently used dialects baa loo yaqaan wuxuu ku siinayaa 12 operation ee ugu dambeeyay samaysay markaad matala for example regression samaysay ama descriptive statistics samaysay marka wixii aad qabatay operationkii ugu dambeeyay ama amaliyadkii ugu dambeeyay filisay ayuu soo saaraya kan waa ando iyo reando markaad ka noqonayso markaad dib u noqonayso de control y iyo waxaad ka noqon kartaa iyo de control z waad ka noqon kartaa labadaba kan muxuu ku noqonayaa hadda waa go to case baa kan loo yaqaanaa bal halka eeg kan waxa loo yaqaanaa go to case kan waxa loo yaqaanaa go to variable baa loo yaqaanaa haddaba markaad case ka dooranayso waa inaad doorato case ku halka ku jira case ku waa kuwa case loo yaqaanaa marka case wuxuu ku jira column ama name ku ka tirsan yahay ama date of birth ku ka tirsan yahay ama job ku ka tirsan yahay ama income ka marka halka ku jira waa inaad doorato marka imika waxaan doonayaa case ku jira name ka in la raadiyo marka go to case baad leedahay marka case ka numberkiisa ku qor for example case ka shanaad baan doonayaa 5 ku qor go dadna okay ina geeyay waa kama saxadana waxaad ku qortay case ka toddobaad goodhe marka sagal mid durgeynaya eeg waxaad ku kama sax case ka labaad geli goodhe marka Cabdullaahi la durgeeyay kama sax case ka koobaad geli goodhe marka okay marka kan waxa loo adeegsadaa marka doonaysa inaad case tagto marka job ko kale doonaysa inaad mid tagto go to case dhe marka ka afraad ina geeyay for example ka afraad ku geeyay okay marka imka kan kuma geynayo ee kan ku geynaya marka markaad case ka raadinayso waa inaad doorato case ku halka ku jira waa inaad doorato way case ku wuxuu ka tirsan yahay columns kan mid buu ka tirsan yahay marka column ku jira waa inaad doorato kan oo kale maxaa loo yaqaanaa isagana go to variable isaga variable waxba dooran maysid marka aad soo saarayso isaga variable waa kan marka halkan u baad ka soo saaraysaa imka income baynu baahanay inuu tagno income kii oo dhan buu calaamadinaya waxaanu baahanahay inaynu job tagno jobkii buu calaamadinaya waxaanu baahanahay inaynu tagno for example name kii buu calaamadinaya marka way kala duwan yihiin variable iyo case ku variables waa kuwan variables marka kuwan calaamadinaya columns kan calaamadinaya laakiin case ka dee kuwan calaamadinaya kuwana case loo yaqaan waa de variable kii kastaaba ama column kii kastaaba de inta soo case ayuu de ka kooban yahay ka ku sii xiga eeg waxa loo yaqaan variable waa variable information wuxuu ku siinayaa information yar oo ku saabsan variable ka imika bal name ko kale magaca aynu gelinay waa name label ka waxaynu gelinay name of subordinate ismid gelinay type kiisu waxa 29 waa wordka waxaan ka dhignay 29 missing value mu jirin nominal na waxa imika job ko kale job baynu gelinay job of subordinate buu ahaa 8 buu ahaa type kiisa ama wordkiisu 8 buu ahaa missing value mu jirin ordinal buu ahaa measurement kiisu value level kiisu waxa student iyo lecturer marka wuxuu ku siinayaa information yar oo ku saabsan information keenu soo gelinay naxdu wuxuu ku siinayaa information ku saabsan magaca type ka label ka wordka iyo wuxuu ku siinayaa value-ga iyo missing-ka kuwaas ku siinaya marka waxa loo yaqaanaa ka variable information baa loo yaqaanaa variable information ayaa la yiraahdaa waayahay haddaan ka sii socdo markaa bal kaa eegata find and replace baa la yidhaha imika qofkan oo kale balkan oo kale waxaad ka dhigtaa inkamkiisa 500 ka dhig waxaad ka dhigtaa 700 ka dhig inkamkiisa for example 1200 ka dhig imika for example nimco oo kale inkamkoodu maaha 700 maaha inkamkeedu waxa weeye keeriya 700 oo 300 marka 700 na bedelan doonaya marka kay waxaad ku dhufanaysaa marka inkamka eegna cabdi waxa raadinaya 700 kadibna uu ku bedelaya balada eeg
waxa loo yaqaanaa waa find intuu raadiyo ayuu ku bedelaya waa find and replace baa la find and replace marka waxaan doonayaa 100 inaan bedelo ama 200 inaan bedelo ama 700 inaan bedelo marka kana ku dhufanayaa waxaan leeyahay 700 raadi maxaad ku bedelaysaa 700 200 ku bedel inkabkeedu 250 inkabkeedu ma 700 waa 250 show baad leedahay replace baad leedahay marka la ku yiri inaad u qaado waa replace marka qaatay marka 700 ka bedelay baad aragtaa marka bedelay bal imika waxaan bedelayaa 100 kaas oo kale bedelayaa marka waxaan leeyahay 100 baan raadinayaa waxaan ku bedelayaa maxay replace baan leeyahay waxaad ku bedelaysaa 100 ku bedel for example waxaad leedahay marka maxay replace marka bedelay 100 ku bedelay marka keebaa la bedelaya waa case marka case-ka markaad bedelayso waa inaad doorato halka ku jiro marka ama column-ka dooro ama mid kamid ah dooro laakiin marka kan haddaad doorato dee bedeli maayo kuwan waayo dee kuwan waxay ka tirsan yihiin dee name-kay ka tirsan yihiin cases-kan ama cases-kan waxay ka tirsan yihiin jobka markaad raadinayso case-ka waa inaad doorato halka ku jiro waa inaad doorato ama markaad bedelayso bal waa imika inuu bedelay 700 ku bedelay hadduu 2 jeer soo noqdo ka war imika halkan oo kale 700 baa ku qoran bal halkan 700 baa ku qoran halkan waxa ku qoran 700 baa ku qoran marka 700 baan bedelayaa waxaan doonayaa inaan idhaahdo find 700 okay replace baan leeyahay for example 350 marka imika laba ku jira keegu bedelayaa ka ugu horeeyo inuu bedelayaa haddaad replace all tirana waxa dhow bedelayaa okay sida awgeed hadduu dhowr jeer soo noqday oo doonayso mid waxa inaad bedesho dee sidan ma isticmaali kartid waa inaad manual ahaan ku bedeshaa haddii kale ma shaqaynayo kuma bedelayo haddii kale ka ugu horeeyo bedelaya waayaan kasii soconno labadaa bal fiirsada hadda waxa loo yaqaanaa insert case iyo waxa loo yaqaanaa insert variable baa loo yaqaanaa marka waxaan gelinaynaa case marna variable marka case iyo variable maxay ku kala duwan yihiin waa column iyo row marka sidana ka fudud badan marka column gelinayso waa kan insert baan leedahay saas ku baxaya markaad kala garanaysana waa kan haddaad row gelinaysana waa kan saas ilaa ma sagan kala garanaysa marka kan waa isticmaali kartaa kan oo kale waa gelin kartaa kaas muxuu noqonayaa insert case waa ka insert variable waad gelin kartaa variable-ki aad kala garanaysa haddaad doonaysana halkan aad ka gelinaysaa okay waa inaga gelinaysa isagana waa kala garan kartaa marka lamadii waa kuwa marka waa insert case iyo insert variable baa loo yaqaanaa kan waxaa loo yaqaanaa splitting file baa loo yaqaanaa oo marka analysis-ka la sameynayo waa la kala jebin karaa imika kan waa analyze all cases wixii oo dhan baa analyze garanaya laakiin kan wuxuu ka dhigayaa organize output by group kan wuxuu kala jebinayaa groups buu kala jebinayaa macnaa haddaad doonto imika waxaan eegi karaa dhammaan waxaan eegi karaa income-ka studentiska iyo lecturerka imika income-kan waa income-kii studentiska iyo lecturerka guud ahaan waan eegi karaa haddaan doonana gaar waxaan eegi karaa ka studentka gaarna waxaan eegi karaa lecturerka markaan kala jebinaya daar kana tegayaa waxaa loo yaqaanaa marka hadda splitting file baa loo yaqaanaa waa ka kusii xiga waa weighted case weighted cases-kan isaga waxaan ku arki doonaa insha allah casharada dambe ayaan ku arki doonaa weighted cases-ka isaga iyo selected cases-kaaga marka saddexdaaba insha allah splitting file-ka iyo weighted cases-ka iyo selected cases-ka iyaga casharada dambe markaan practical u qaadano ayaad fahmi doontaa marka waxaad xoog u isticmaalaysaa waa open-ka save-ka printing-ka iyo deando iyo reando iyo kuwan haddaad go to case iyo go to variable tegayso iyo haddaad variable gelinayso iyo haddaad variable aad ka saarayso kuwan iyaga markaan isticmaalna ayaad xoog u garan doontaa insha allah tacaala marka halkan fartaad ka weyneyn kartaa hadaba fiirso fontka markaad tegaysa halkan aad ka weyneyn kartaa okay weeye marka halkaas in maanta cashar ku joojin doonaa data entry marka waa inta waxaa ka dambeeyana waxaan geli doonaa data analysis-ka ayaynu geli doonaa insha allah tacaala